weli maamulka madaxweyne Putin waxa uu eryanayaa dal kasta oo ku yaala gobolkaas oo doonaya inuu ku biiro isbahaysiga difaaca ee NATO. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa hadda lagu soo waramayaa inay soo dirtay ugu yaraan 2 nuuc oo ah gantaalaha K300B Passion B oo ay NATO u taqaano magaca SSC-5 Stooge oo ah nidaamyada gantaalaha difaaca xeebaha ee guurguura meel u dhow xadka ay la wadaagto Finland ayaana sida muuqata lagu daadgureeyay. warkan ayaa waxaa markii ugu horeysay faafiyay jariiradda Daily Mail ee ka soo baxda dalka Ingiriiska, taasoo qaybisay muuqaal muujinaya gantaalaha oo la arkaya iyagoo ku sii jeeda xuduudda dalka Finland. hal batari oo hanaankan ahi wuxuu ka kooban yahay 2 baabuur oo culus oo sida K300P Passion B iyo baabuur leh waa barta laga dabrido nidaamkan iyo raadar. hanaankan gantaalaha xeebaha Ruushka ee Passion P la yiraahdo ayaa isticmaala gantaalaha guuxoodu ka dheereeya ee lagu magacaabo SSN-26 Stobile oo dabcan noqonaysa P800 Okinis, kaas oo xawaar ahaan ku dhowaad 3 jeer guuxiisa ka dheereeya waxna ka dili kara gacan dhan 600 oo kiiloomitir. tusaale, masaafada ay magaalada Ruushka dabcan ama magaalooyinka kale ee gobolada kale oo ku taala xuduudka Finland ay u jirta caasimadda Helsinki ayaa in ka yar 600 oo kiiloomitir. markii ay taariikhda ku beegneed 12 Abriil oo shalay ahayd, ra'iisul wasaaraha Finland ayaa ku dhawaaqday in dooda ku saabsan in Finland ay ku biirto NATO ay dhammaan doonto dhowaan, waa dhamaadka xagaaga sida ay sheegtay haweeneydan. kaliya 12 bilood ka hor 59% dadka waddankaasi u dhashay ee Finland ayaa waxay u tixgeliyeen Ruushka khatar military oo weyn, halka ay boqolaydu tahay maanta qiimeynta marka la fiiriyo 84%. haddii 12 bilood ka hor dadka u dhashay waddanka Finland qiimeyntooda ay ahayd 59, maanta waa 84%. waxay ku qoys qaateen duulaanka Moscow ee Kiev. waxay og yihiin goor kastana iyaga in lagu soo jeedo, bartilmaameedna ay u yihiin maamulka Putin. diridda 2 batari ee gantaalaha xeebaha ayaa u muuqata inay tahay jawaabta Moscow ee hadalka haweeneyda ra'iisul wasaaraha. Dmitry Peskov oo ah afayeenka Kremlinka ayaa isla shalay sheegay in talaabadan ay dabcan qaado Finland ku biirista NATO aysan sinaba u hagaajin doonin xaaladda Yurub waqti xaadirkan.